samee salaameynta samaha jeceliya Soomaalidu oo idil waqtigii waayuha idin wacnado halka taani iga dalacanaysan waa saxaaf janal saacad qof waliba inta oo tahay soo saaruna waa aniga u diyaar garow muuqaal cusub muuqaalkana waxa uu ku saabsan yahay guurkii fanaaniinta Cawaale iyo Mrs Xiis oo bulshada dood badani ay ka keeneen maxay tahay doodan ay bulshada ka keeneen guurkan maxaa sababay in guurkan iyo guurkii hore Cawaale aadan xaaskiisa hore la isku soo dabaqo mala dhihi karaa kan waxa uu shabahaa kii Xariir Axmed guursaday xaas kale isagoo hore u qabay xaas dad badan si waxa isweydiinayeen horta ma dhaba inay isguursadeen Cawaale aadan daahiyay waliba Mrs Xiis Maxamed Raage qodobada ay kuba kale ayad muuqaalkan ku daawan doontaan hadii la weyna laga helo ana idin la socodsiinayay kuna wada daawanaysaan oo diyaar garoowa iyadoo dhameystiran maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxa qabsaday guur ay hambaliyadiisi dirayeen qaar kamid ah dadka isticmaala baraha bulshada haba u badnaadaan shacabka waxaana loo hambaliyeenayay Cawaale aadan daahiye fanaanka reer Jabuuti iyo waliba fanaanada reer Jigjiga Mrs Xiis Maxamed Raage waxaana dadka intooda badan ay dhahayeen hambalyo guurkiina guur qeer gurigiina gurinagi laakiin arinka waxa ka soo horjeestay shacab kale oo Soomaaliyeed oo eed kala dul dhacay Cawaale aadan daahiye iyagoo soo xiganaya xaaskii hore iyo waliba kalmihii sugaantu hore ugu luqeeyay oo uu si saa'id ugu amaanayay xaaskiisa haddaba maxaa sababay in baraha bulshada siyaabo kala duwan ay ugu kala hadlaan kuwana ay taageeraan kuwana ay ka soo horjeestaan intaan u guuda galin qaybaha dambe ee barnaamijka su'aalo dadka isweydiinayaan ayaa jira oo ah horta ma dhaba in ay isguursadeen Cawaale aadan iyo waliba Mrs Xiis aan ku bilaabo mid kamid ah boostiyada ay soo dhigeen baraha bulshada qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed magaceeda waan ka gaabsanaya laakiin waxay tiri hambalyo ama happy saaxiibtay qaaliga Mrs Xiis Maxamed Raage iyo waliba dumaashi qaali Cawaale aadan oo meherkeedu uu dhacay 17 bisha 12aad 2021 waxaan sugaba waa farxadda saaxiibteeda qaaliga waxayna raacisay love aad u fara badan waxa ugu badan oo ay dadka su'aalaha ka keeneen ayaa ah in ay ku soo qortay 17 oo aan wali la gaarinba bishan December aynu ku guda jirno waxay dadku isla dhexmarayeen in ay suuragal tahay in ay qaladay taariikhda iyo in si kas ay ugu soo qortay 17 maadaama aanay ku qanacsaneen guurka Cawaale aadan daahiye iyo waliba Mrs Xiis tan iyo hees ay si wada jir ugu wada luqeeyeen Cawaale iyo Mrs Xiis wala isla xiriirinayay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana bulshada ay isla dhexmarayeen tuhno iyo shakiyaad u fara badan oo ahaa in xiriir ay leeyihiin labadan fanaan heestii ay ku luqeeyeen ayaa noqotay mid ay dadku aad u jecleysteen waxaana ka dhex muuqday ereyo aad u fara badan oo lagu muujinayay markaad haysato xaas daacad ku ah waxay noqonaysaa dharka aad ka hugato dhaxanta qayb kamid ah ereyadii ay u adeegsadeen ama uu abwaanka heestan sameeyay ku soo dhex daray heestii ay wada keeneen ereyada heesta waxa kamid ah hadaadan i dhiirigelin ama dhinacayga jirin miyaan ban dhaqaaqila oon dhaqaaqila markaas ayaa isagu waxa uu ku jawaabayaa dhidiga adiga u wacan dhiga ugu qiimo badan oo dhabbaan adigu jeclahay markaas ayaa waxay si talantaali ah u qaadayaan dharkan xiranayay dhaxanta iga celinayay intaad igu dharaaran tahay qeyrkee waan dhaafaya laakiin bulshada ayaa waxa ay dib u milicsanayaan isla markaana xusuusanayaan heestii ahayd haddii aan smoke ka arsan la ayaa dambiyo rajan eegaya eed waxaad fashana uwadkaan dhalnaan ku ilaabaya oo uu u qaaday sida dadku ay aaminsan yihiin xaaskiisa hore xilliga kadib xiriiro badan oo jiray iyo tuhno badan oo jiray ayaa waxa ugu dambeyntii baraha bulshada qabsaday meherkooda oo hambalyo kala duwan la dirayo dad badan ayaa tuhno iyo shaki galiyay laakiin waxay dadku isweydiinayaan maxaa sababay haddii ay isguursadeen labadooda in labadooduba aanay marnaba ka hadlin guurka ay isguursadeen taasina waxay noqon kartaa su'aal loo baahan yahay in laga jawaabo laakiin jawaabta ay dultaal ama ay hoostaal Cawaale iyo Mrs Xiis inay iyagu cadeeyaan in arinkan uu wax ka jiro iyo in arinkan uu yahay mid propaganda oo ay bulshada wadan waxa la socotiin dhawaan in Xariir Axmed uu guursaday xaas kale isagoo horey u qabay xaas waxaana arimahaasi sidoo kale dood badan ka keenay baraha bulshada oo marnaba aan ku qancayn nin xaas qaba inuu xaas kale guursado iyadoo guurka xaasaska badan
uu yahay mid alla uu u baneeyey ragga adduunka ku sugan kuwa muslimiinta ah. baraha bulshada marnaba kuma qancaan inay arkaan fanaan markii hore aad u liitay, markii uu bulaalay oo uu lacag fara badan helay dibadaha ama qurbahana uu tagay inuu la soo shartago xaas kale. waxaynu arkaan in arrinkaasi uu yahay mid lagu bahdilayo xaaskii hore oo uu fanaankaasi u qabay. waxaan ka hadlaya maahan Cawaale Aadan Daahiye iyo weliba Xariir Axmed, laakiin waa dhammaan ragga Soomaaliyeed. bal markaan aan qaato qaybo ka mid ah boostiyadii ay soo dhigeen baraha bulshada oo ay kaga soo horjeedeen guurka Cawaale Aadan Daahiye iyo Mrs Xiis. waxa uu wiilkan aan magaciisa ka gaabsanay yiri guurka ayuu title kaga soo dhigay, wuxuuna intaa raaciyay guurka sidaasi ha ka dhigin. gabadha markay xaalado adkayd kula soo martay isla markaana ay kula soo cabtay biyo kulul, markay ku kala kacdo ogow inay iyaduna xaq u leedahay inay biyaha qabowna kula cabto, maadaama ayuu la jeedaa oo biyihii kululaa ay kula soo cabtay. waxa uu la jeedaa wiilkan arrinka uu ka hadlayo marka xilliyadii hore maadaama aad ahayd qof aan waxba haysan bulshada dhexdiisana aan si saa'id uga muuqan, markii aad bulaashay oo aad khatar noqotay in xaaskii hore aad ka daba keento mid kale iyadoo aad xaqeeda dudsiinaysa maadaama ay dhibaato iyo dheefba kula soo qaadatay. inta ayuu la jeedaa, balse aan idiin sii dhameeyay wuxuu yiri because way u soo sabartay wayna mutaysatay tan biyaha qabo waqtiga la helay iskeenayso weydii halkay joogtay markuu xaalka adkaa. waxa uuna qaybta dambe raaciyay qoraalkan wuxuu ku soo qoray page-kiisa 9 bishii June sanadkii 2017. haddaba maxay kula tahay aan sharaxaad kooban idin siiyo markan. wiilkan qoraalka uu soo qoray ma ahan mid ka soo burqaday maskaxdiisa, laakiin waxa uu soo minguuriyay sanadkii 2017 oo laga joogo muddo 3 sano. qoraal uu Cawaale Aadan Daahiye soo dhigay page-ka uu Facebook ama qaybo ka mid ah baraha bulshada uu ku leeyahay uu ku cadeynayay inaanan wanaagsaneyn markii xaaskii hore ay dheef iyo dhibaato kula soo qaadato markii aad bulaasho oo aad biyaha qabow cabto, Canada aad tagto iyo meelo kale oo Yurub ahba in mid kale aad ka daba keento meesha biyaha qabow iyada aad siin lahaydna aad midda cusub siiso. haddaba dadku waxay isweydiinayaan maadaama fikirkiisa uu Cawaale Aadan Daahiye 2017 mid aan haatan idin sheegay maxaa haatan bedelay, muxuu Mrs Xiis la guursaday, aaway xaaskii hore iyo caruurtii hore uu haystay. waxaa shaki ku jirin in ragga muslimiinta adduunka joogu Ilaahay u baneeyay inay 4 guursadaan, laakiin dadku waxay ka soo horjeedaan in qofku u soo dhibtootay gadaasheed aad dhibkii ku sii dayso qof kale oo aan dhibaato kula soo marinna uu dheeftii kula cuno. markaan aan idin xusuusiyay qayb ka mid ah erayadii iyo haleysyadii ay adeegsan jireen dadka hal abuurka bulshada ah, waxa ka mid ah waxa ay adeegsan jireen ama erayadii ay adeegsan jireen markaad hesho malabka ha iloobin qofkii dacarta kula cabi jiray. daawadayaal muuqaalkan intaan ayaan kusoo gabagabeynaya, ma doonayay inaan sii dheereeyo ama aan ku sii fogaado. intii aan idin sheegay ma ahayn wax dhankayga ka yimid, laakiin waxa uu ahaa wax dadka baraha bulshada ay isla dhexmarayeen, isla markaana kuwa ay taageerayeen kuwana ay dhaliilayeen. haddaba fikirkaaga muxuu yahay? gabar kula soo rafaaday, kula soo silicday xilligii abaarahana agtaada aan ka fogaan biyaha kulul kula cabi jirtay, markii aad dogsato qaboobsato bulaasho kala kacdo bulshada ay ku wada qayliyaan, ma wanaagsan tahay inaad meel cidlaha uga dhaqaaqo isla markaana mid aanan weligaa dhibaato kula marin aad dheeftii adkayso. sheekadan oo idil jawaabaheeda idinkaan idinka sugaya, laakiin jawaabtu ah inay sax tahay guurka Mrs Xiis iyo Cawaale Aadan waxaa looga fadhiyaa labada fanaan. waa fanaanada reer Jigjiga Mrs Xiis Maxamed Raage iyo weliba fanaanka reer Jabuuti Cawaale Aadan Daahiye. nabadgelyo.